Safiya Cabdi Toure oo haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo si magacaabisa ku soo gashay ayaa waxa ay u halgamaysaa mar kale sidii ay baarlamaanka 2013 u gali lahayd ayadoo xildhibaanad la soo doortay ah waxayna ololaheeda doorashada ka bilowday deegaanka Masalani oo ka tirsan countiga Garissa. Safiya Cabdi Toure ayaa markii ay tagtay si aad loo soo dhaweeyay ayadoo isla markiiba loo xiray dharka hidaha iyo dhaqanka ee reer Masalani. Safiya Cabdi Toure ayaa markii ugu horeysay ololaheeda doorashada kula kulantay haween ka badan 500 oo ruux oo isugu soo baxay taageerideeda waxayna u sheegtay in ay waqtigan doonayso isbedel maadaama dalkani Kenya inta badan doorashada xildhibaanada iyo madaxda dawladaba loo doorto rag markaan waxaan doonayaa sidii haween loo dooran lahaa ayay tiri Safiya oo la hadlaysay dadkii isugu soo baxay taageerideeda. Gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya waxa uu ka mid yahay gobolada aan weli cid haween ah laga soo dooran. Isbedelka ayaan la doonayaa ayay leedahay bal si loo arko waxqabadka haweenka. Iyadoo arintaasi Safiya ka hadlaysana waxay tiri anigu waxaan halkan u imid taageeridiina soo ma doonaysaan in aad i taageertaan yaa u diyaara isbedelka in uu igu taageero anigu waxaan doonayaa in aan isbedel keeno maxaa yeelay waxaan aqoon iyo xirfad u leeyahay arintaas iyo waliba in aan taageero uga heli doono ree ijaara. For the warm welcome that you have given to me. What I want to tell you is, I came here because I want your support. I want to see how many are going to support us. I want your support. Na sera zake, sera za mama ni sera ya kusema na kutimiza. Sera ya mama ni sera ya kusema na kutimiza. Sio kusema tu. Mama amewambia hapo awali na alipowambia kwamba kuna kazi vitendo ambaye anataka kutengeza hapo awali. Tulitembea pamoja, tukafanya kazi pamoja na tukaendesha ijara na leo tumekaa hapa pamoja ni kwa sababu ya ile kazi tulifanya pamoja kama watu ya ijara. Safiya Cabdi Toure oo markii horeba filaysay in ay dadweynaha reer Masalani soo dhaweyn kala kulmi doonto ayaa si ka weyn sidii ay filaysay la kulantay waxayna tiri isbedelka aan raadinayo waa in gabadha maanta aan helaynin waxbarashada wanaagsan ee dhibaatadu ay haysato in aan 5 jir marka ay tahay ay gaarto galaaska labaad marka ay da'deedu gaarto 20 sanana ay u soo istaagi karto xildhibaannimo iyo sidii ay uga qayb qaadan lahayd hogaaminta dalka. Na hiyo angalia na hiyo makatano kwa sababu mimi natafuta hii nafasi ni kwa sababu ninataka kueleza kwamba hata msichana yenu ambaye yuko klasi ya 2 au 3 au nasari atakuwa na hiyo roho ya kuona kwamba ikuje maka 20 na yeye anaweza kusimamia hiyo kiti. Safiya Cabdi Toure ayaa waxa lagu xasuustaa sidii ay wax uga qabatay xuquuqul insaanka waxbarashada gabdhaha iyo waliba horumarinta kooxaha haweenka. Maxamed Ciise, Honkebel TV, Masalani.